dowladda Uganda ayaa magaalada Kampala ee caasimadda dalkaasi ka furtay shir muhiim ah oo ay isugu yimaadeen madaxda militariga, saraakiisha sare iyo sidoo kale mas'uuliyiin ka kala socota dalalka ku mideysan ciidanka Heeganka Bariga Afrika. Shirkan ayaa si gaar ah diiradda loogu saaraya isbedelada ku socda howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya AWSOM, mustaqbalka howlgallada nabad ilaalinta ee qaaradda iyo sidii dalalka Afrika ay u yeelan lahaayeen awood amni oo ay si madax bannaan ugu wajahaan xaaladaha degdega ah. Kulanka Kampala ayaa ah shirka 36aad ee caadiga ah ee hay'adaha siyaasadda ee ciidanka Heeganka Bariga Afrika wuxuuna ku soo beegmayaa xilli ay sii kordhayaan walaacyada ku saabsan maalgelinta iyo sidoo kale taageerada caalamiga ah ee howlgallada amni ee qaaradda Afrika, gaar ahaan AWSOM oo door muhiim ah ku leh taageerada ciidamada dowladda Soomaaliya ee dagaalka ka dhanka kooxda argagixisada Al-Shabaab. Wadamada ka qaybgalaya shirka waxaa ka mid ah Uganda, Burundi, Comoros, Djibouti, Ethiopia, Kenya, Rwanda, Soomaaliya iyo Suudaan. Saraakiisha militariga iyo sidoo kale kuwa rayidka ayaa ka wada hadlaya sidii loo xoojin lahaa awoodda amni ee qaaradda, loona dhisi lahaa ciidamo diyaar u ah inay si degdeg ah uga jawaabaan colaadaha iyo sidoo kale xaaladaha amni ee ka dhaca dalalka Afrika. Shirkan waxaa sidoo kale ka horeeyay tababar iyo qiimeyn ciidan oo ciidanka Heeganka Bariga Afrika ay Uganda ka sameysay intii u dhaxaysay 6 iyo sidoo kale 8 Agoosto. qiimeyntaas ayaa lagu tijaabiyay heerka diyaargarowga ciidamada Uganda ee loo qorsheeyay inay ka qayb qaataan howlgallada amniga ee gobolka iyo sidoo kale qaaradda. qiimeynta ayaa ka dhacday xarumaha ciidamada iyo sidoo kale goobaha tababarka ee Singo iyo Jinja. Waxaa lagu eegay awoodda ciidamada booliska iyo shaqaalaha rayidka ee loo diyaariyay inay ka qayb noqdaan ciidanka Heeganka Bariga Afrika. Qorshaha ciidanka Heeganka Bariga Afrika ee ururkan ayaa dhigaya in ciidamada loo diyaariyay howlgallada ay awood u yeeshaan inay si guud ah uga howlgalaan qaaradda muddo aan ka badnayn 90 maalmood. Xaaladaha degdega ah ee u baahan jawaab degdeg ahna waxaa loo qorsheeyay in ciidamada lagu howlgeliyo muddo gaaban oo gaaraysa 14 maalmood. Taliyaha ciidanka Uganda ee howlgallada wadajirka ah ee Saraya Jack Baksuma ayaa carabka ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay in Afrika ay yeelato awood amni oo u gaar ah xilli qaaradda ay weli ku tiirsan tahay taageero dibadeed oo dhinaca dhaqaalaha, saadka iyo sidoo kale howlgallada amniga ah. Baksuma ayaa sidoo kale tilmaamay muhiimadda sii wadida dadaalada amni ee Soomaaliya, gaar ahaan xilli isbedelo lagu sameynayo howlgalka AWSOM iyo qorshayaasha ku aadan in mas'uuliyadda amniga si tartiib ah loogu wareejiyo ciidamada Soomaaliya. Uganda ayaa muddo dheer ka mid ahayd wadamada ugu waaweyn ee ciidamada ku leh howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya, iyadoo ciidamadoodu ay door muuqda ka qaateen dagaalka lagula jiro kooxda argagixisada Al-Shabaab. Kenya ayaa sidoo kale ka mid ah wadamada gobolka ee ciidamo iyo sidoo kale awood ciidan ku leh gudaha Soomaaliya, gaar ahaan dhinaca koonfurta dalka. Sidaa darteed waxaa ka soo baxaya shirka Kampala waxaa muhiimad gaar u leeyahay isbedel kasta oo ku yimaada qaab dhismeedka howlgallada, maalgelintooda iyo sidoo kale saadka ama tirada ciidamada ka qayb qaadanaya, wuxuuna si toos ah ama si dadban u saameyn karaa xaaladda amni ee Soomaaliya iyo sidoo kale awoodda ciidamada dowladda ee dagaalka lagula jiro kooxda argagixisada Al-Shabaab. Arrintan ayaa muhiimad gaar ah yeelanaysa iyadoo AWSOM uu wajahayo caqabado dhinaca maalgelinta iyo taageerada saadka, halka ciidamada Soomaaliya loo diyaarinayo inay si weyn ula wareegaan mas'uuliyadda amniga dalka. Mas'uuliyiinta ciidanka Heeganka Bariga Afrika ayaa doonaya in ururku uusan ku ekaan qorsheyn iyo sidoo kale diyaargarow ciidan oo kaliya, balse uu yeesho awood dhab ah oo si degdeg ah uga jawaabi karta colaadaha iyo sidoo kale xaaladaha amni ee ka dhaca qaaradda Afrika. Shirka Kampala ayaa wuxuu ku soo aadaya xilli xasaasi ah oo Soomaaliya sidoo kale guud ahaan Bariga Afrika ay wajahayaan xaalado amni oo isbedelaya, waxaana si gaar ah loo eegayaa in dalalka Afrika ay awood u yeelan doonaan inay sii xoojiyaan ciidamadooda, halka AWSOM uu ku sii socdo marxalad cusub oo la xiriira mas'uuliyadda amniga Soomaaliya.